مثلا asxaabtii maanta waxaa idin qayb sagaalaad ee taxniga qaybta warbixin oo joog markay daanay injiga ku dhaysay waxaan rabaa inaad shirkadaada ka shaqeeyo waxay soo jiitay hadalkii aad ka dhaysay bandhiga kaasoo ahaa waxaan rabaa ilmahayga inay mustaqbalka nolol fiican ku noolaadaan injiga waxay ku dhaysay soo ku soo jiitay daalin waxay ku dhaysay hadalkaas ad kor waxay dhahay aabahayga daalin waxay dhaysay saailtaadii ani isku hadaf ayaan nahay anigeedii waxay isku daysaa gaariga ay ku shaqeysan jirtay daalin waxay ka mid noqonaysaa company injiga 6 sano kadib waxaan arkaynaa inaan dusay asxaabtiisa oo markab saaran hoosuun wuxuu duubayaa muuqaal daalin waxay arkaysaa qaar ka mid ah tiimkooda oo socda injiga adeerkeed wiilku dhalay waxay maanta injiga waxay ku dhaysay muuqaal hordhaca company u duubana kadibna ay soo waraacayaan daalin waxay arkayaan labada intaana daalin waxay ku dhaysay video hordhaca company u duubana ayay waxay ku dhahayaan waa mashquulsanahay kadib way kasoo tagayaan daalin waxay tiimka tusaysaa videoga uu ka duubay inaan duusayn adeerkiisa waxa meesha maana inaan duusayn adeerkiisa waxay duubayaan video hordhaca ay ku xayeysiisneen company-ga kadib videogaas waxa arkay Jooso iyo Hunyo Jooso wuxuu inaan duusan ku dhahay in adeerka muuqaalka bartiisa YouTube soo dhigay maaragtay daalin ayaa ku jirtay inaan duusan wuxuu dhahay oo baahni wana tagayaan aan soo laaban tiimka injiga daalin waxay inaan duusayn adeerkiisa ku dhaysay waan baxaynaa dhankan waxaan arkaynaa Jooso fariin soo diray saaxiibkeeda wuxuu ku dhahay meeshaan aad rabnay waan ka baaqanay iyada waxay ku dhaysay aan kala tagno kadib waxaa maani saaxiibadeeda waxay sheegaysaa in iyada iyo saaxiibkeeda kala tageen kadib waxa uu soo dhacay muuqaal uu soo dhigay Hongson way fiirsanaysay dhanka daalin waxay fiirsanaysay muuqaalkaas duusan wuxuu fiirsanaa muuqaalka ay daalin xayeysiintu sameynaysa company injiga kamsara wuxuu soo galay xafiiskiisa wuxuu maqlay gacanyariis oo telefoonka la wuxuu dhahay daalin waxay jeceshahay niman gacmaaweyn asaga wuxuu fiirinayaa gacmihiisa saraan gacanyariis wuxuu mastaraan ku dhahay daalin waxay rabteen gaari kaliisa soo magaalka uu daayo waxa uu caamin saaxiibkayga oo canshuurta ka shaqeeya asaga wuxuu codsaday asaga iyo daalin inay saaxiibo noqdaan mastaraan markuu muuqdo soo xarreeya dhanka daalin wuxuu fiirsay ninka canshuurta bixinaya wuxuu ku dhahay qof walba gaariga inuu dhibaato geysto idinka ayaa damaandeed bixinayo idin way soo wada baxayaan asaga wuxuu ku dhahay caawa shamaada ka naayeen wuxuu ku dhahay caawa qorshe ayaan leeyahay idin waxa uu maanay mastaraan wuxuu ka qabanayaa garabka waxay soo karayaan wiishka mastaraan wuxuu iska cabiraya gacantiisa iyo gacanta ninka wuxuu dhahay gacanteeda yaabeen idin waxa furmaa wiishka ninkan meesha uu isaga xarreeya mastaraan wuxuu soo laabanaya daalin weyn soo wada raacayaan daalin wuxuu dhahay hadii aad caawa jaad leedahay ma noo imaad asan hayay ayuu ku dhahay habeenka waxaan arkaynaa daalin oo soo baxay injiga waxay ku dhahaysaa casha ayaan samaysnay ma noo imaanaysaa ayaan waxay ku dhahaysaa waa mashquulsanahay kadib telefoonka ay ku daminaysaa hooyadeeda waxay ku dhahaysaa injiga ma imaanaysaa ayaan waxay ku dhahaysaa waa mashquulsan tahay kadib way iska baashaalayaan wax yar kadib waxaan arkaynaa mastaraan oo hurda waxa uu imaanaysaa daalin kadib way jiifnaysaa waxay saaraysaa goob waxa uu imaanaysaa iyada waxay ku dhahaysaa iyo cuntadii uu jeclaa berso wuxuu sameeyay asaga hadalkaas oo dhan uu maqlaa wuu naqsaday dhankan waxaan arkaynaa injiga oo shaqadeeda kasoo baxaysa kala soo laaban guri daalin mastaraan uu soo kacaya daalin waxay imaanaysaa mastaraan asaga wuxuu ku dhahay marka la soo kulantid waxaan rabaa qofka hore oo agtiisa ku nafisaysid ma noqdo dhankan waxaan arkaynaa inaan duusan iyo saxaabtiisa Hongson wuxuu asxaabta ku dhahayaa waxaan rabaa inaad tigid dalbo waxaan u socdaa Kuuriya inaan duusan wuxuu dhahay anigana ii dalay ku dhahay goorma soo laabanaysaa asaga wuxuu ku dhahay idinka ayaa idin soo laabanaya dhankan waxaan arkaynaa mastaraan wuxuu u sheekaysnaa robotkiisa wuxuu ku dhahay waqtiga uu socdaa waxaa loo baahan yahay inaad talaabo qaad kadibna uu soo baxaya dhanka habeenkeeda waxaan arkaynaa inaan duusan iyo saxaabtiisa ku jahan Kuuriya Hongson wuxuu dhahay mashruuc 3 sano ee 2STO uu soo dhamaaday Hongson wuxuu dhahay hadii aan baarmatiyo iibsan ka waran inaan duusan wuxuu dhahay go'aankeyna kaliya ayaan raacayaa dhankan waxaan arkaynaa injiga iyo daalin oo iska taagan injiga waxay daalin ku dhahaysaa baabuurkaas lacagta noo bax 2 bilyan kor way u dhaafaysaa hadii aan fasax helin lacagtaas lacag ka badan naga bixis daalin waxay ku dhahaysaa cadays miyay saaraysaa injiga wuxuu ku dhahaysaa may laakiin wuu ku digayaa dhankan waxaan arkaynaa Hongson oo live ku jiro wuxuu asxaabtiisa sheegaya shirkad Samsung meesha ay kasoo bilaabeen inta aysan ku biirin 2STO wuxuu dhahay gurigan qof kireysta ayaa loo asaas ayaan u soo laabanay kadib way soo garaacayaan waxay imaanayaan maqaaxid jiriskooda waxay dhahay maqaaxida cuntadeeda awal way noo soo carfi jirtay laakiin maanta waa cunoona dhankan waxaan arkaynaa mastaraan oo kaliistaan wuxuu xasuusnay hadalkii uu robotkiisa ku dhahay oo ahaa waqti ayaa kuu socotay laba hore oo qaad kadibna uu soo baxaya waxayna is arkayaan inaan duusan uuna yaabaya dhankan waxaan arkaynaa daalin oo telefoonka hadlaysa waxay ku dhahaysaa emailka ma soo dir kartaa sida tijaabada hore loo sameeyay isagana wuxuu ku dhahayaa sir waaye mid kan beetiinka wuxuu ku dhahay may ku dhahay iyada wuxuu ku dhahaysaa sir waaye ayagu dhan kadibna way baxaysaa halkan mastaraan iyo inaan duusan ay fariisneen mastaraan wuxuu inaan duusan ku dhahay wada isbedeshay inaan duusan wuxuu ku dhahay haa 2STO ayaa fursadna siisay inaan duusan wuxuu arkay hadiyada uu mastaraan inaan duusan wuxuu mastaraan ku dhahay sayidka hadiyadan qof ayaa wada wuxuu dhahay haa daalin ayaa waday maadaama ayaa walba mii gashay way ka tagayaan dhanka daalin waxay soo iloobaysaa furaha gaariga weyn u laabanaysaa daalin wuxuu imaanay xafiiska ka shaqeynaysa daalin iyagana wuxuu ku dhanshiray adeeg kadibna uu soo baxayaa dhanka inaan duusan wuxuu imaanay meeshuu hadda kahor waraaqad ku dhejinayo wuxuu xasuusay daalin inuu kasoo tagayaa dhanka daalin markay ay wiish kasoo degto waxay arkaysaa qof weyn inaan duusan weyn soo dawgalaysaa markay ay soo jeedsan wuxuu ku naqanayaa ninka weyn raadgelinaysaa isagana caadi ayuu ku dhahayaa wuuna ka tagayaa iyadoo soo hadlaysan waxay dhahaysaa nin Ameerika jooga maxaan u raadinayaa kadib waa soo baxay weyn soo carraysaa dhanka Hongson iyo Jooso oo sir soo baxa kormaanaysa Jooso waxay ku dhahaysaa Ameerika inay jirtaan ayaa u maleynaa maxaa inta idin keenay iyagana waxay ku dhahay fasax ayaan u imaanay Hongson wuxuu ku dhahay maxaad ka qabanaysaa iyada waxay ku dhahaysaa gaari ayaan sugayay Hongson wuxuu dhahay adii Jooso ay israacnay waan sii baxaya kadib way soo wada raacayaan Jooso waxay ku dhahaysaa Ingiriiska ma baratay asagana wuxuu ku dhahay weli ma baranin iyada waxay ku dhahaysaa jimay laabanaysaa asagana wuxuu dhahay 10 beri kadib ayaan laabanaynaa iyadana waxay ku dhahaysaa intaad joogto hadii aan Ingiriisku barka waran asagana hayay u dhahayaa waxa soo baxay
daani waxay ku dhahaysaa software-kan ayaa lasoo weeraray. Waxay ku dhahaysaa qof IT ku fiican iyo su'aalaha kadibna way ku daminaysaa. Mid team ka mid ah wuxuu dhahay lacagtaas ka bixin si ay faylashan noo soo wareejiyaan. Daani waxay dhahaysaa ayaa sheegi kale inay faylashan u soo wareejinayaan. Kadib waxaa loo sheegay in waqti kasta ay lacagta sii siyaadayso. Kadib daani way soo baxaysaa waxay soo xasuusinaysaa hadalka mastaraan ku dhaha oo ahaa haddii aad dhibaato dareentid qofka ugu horeeya soo xasuusinaysid aniga aan noqdo. Kadib waxaa soo baxay Namduusan markii ay codkiisa maqasho way iska weynaysaa. Wuxuu ku dhahay wax kasta Jose ayaa ii sheegtay hadda ayaan ku imaanayaa. Kadib wuu soo baxay wuxuu imaanayaa kambaniga. Dadka markay arkaan Namduusan way xanaaqayaan meesha ay isaga tagayaan. Kadib waxaa meesha imaanaya Jose iyo Mugso iyo Juuso. Namduusan wuxuu ku dhahayaa wixii qaldan kombiyuutarkaas ka fiiriyay kadibna ii soo gudbiya. Intii team kale way soo baxay Namduusan wuxuu dhahay arrinkan wuxuu eegay arrin aan hore u arkay. Juuso wuxuu dhahay adiga ayaa badbaadi markii uu 6 sano kahor arrinkan oo kale qabsaday. Namduusan wuxuu dhahay isla qofka dhamuu yahay. Juuso wuxuu dhahay hadda waa ogaan karnaa xogtoo dhan inta ay ku jirtaa. Namduusan wuxuu dhahay furiidu furla hadda ayaan helay. Furaayo gelinay wuxuu dhahayaa waan dhameeyay. Aanin dal dartiisa ay dhacaysaa waxaan qaaday Namduusan. Jose ayna xibanaysaa Mugso. Namduusan wuxuu biyo keenaya daani. Wuxuu ku dhahay fiican tahay waxay ku dhahaysaa waa fiican laakiin adiga goorma imaatay. San wuxuu dhahay maalmo kor ayaan imaaday iyo waxay dhahaysaa goorma laabanaysaa. San wuxuu dhahay isbuuc kadib ayaan laabanaya. Kadib waxay ku dhahaysaa waa maasantahay wax kastoo haddii samaysaa san nidaam mudan ayuu dhahayaa. Markan mastaraan oo soo socda wuxuu arkay teamka IT wuxuu wacay gacanyihiisa wuxuu ku dhahay qof miya xogtiisa u jabsaday. San wuxuu ku dhahay kambani injiya ayaa xogtiisa la jabsaday kadibna uu soo xaray wuxuu imaanaya daani. Wuxuu ku dhahay waxaan maqlay in xogtiisa la jabsaday. Iyadana waxay ku dhahaysaa laakiin waxaan caawiyay Namduusan iyo asxaabtiisa. Waxaan arkay Namduusan iyo asxaabtiisa Mugso wuxuu asxaabta kale ku dhahayaa go'aan qaanto istiyo mu shaqaynayna misaalkan ay iska joogeynaa. Asxaabta oo dhan waxay isku wada raacayaan inay kuuri joogaan kadib Namduusan wuu baxaya si uu soo qaato jaakeetkiisa. Wuxuu imaanaya shirkad Sambaqs wuxuu meesha ku dhajinaya waraaq dhanka waxaan arkay daani oo oonayso. Waxayna fiirinaysaa jaakeetka Namduusan markii Namduusan wiishka ayuu soo raacaya. Markuu albaabka wiishka furmo wuxuu albaabka agtiisa ku arkaya mastaraan oo taagan soo bixi rabaan gudaha wiishka ayuu kicinaya wuxuu dhahayaa waa inaan wada hadalnaa. Kadib waxaan galinay xasuus markii mastaraan inta uu joogay daani. Waxay ku dhahday aniga bisxibsna marka hore la iga rabay inaan iska ilaaliyo meesha ay dhibaatada iga imaanayso. Kadib waxay ku dhahaysaa qofna u sheegay inaan keligay oonayo. Inta kadib waxay maqlayaan qajaf weyn isqarneen. Kadib waxaa meesha imaanaya loo kamid teamka. Ayagoo raadinaya daani markii ay waayeen oo iska baxayaan. Iyagana way soo baxayaan mastaraan wuxuu daani ku dhahay ilaa kan fiisaysinta iska joog kadibna wuu ka tagayaa. Mastaraan wuxuu dhahay daani darteed Soomaaliya u imaanin. Dab meesha ka imaatay waa inaad dib ugu laabataa. Mastaraan wuxuu dhahay daani sidaa u arkay miyaa ka fasax qaadanaya. Mastaraan wuxuu ku dhahay la soco 3 sano wax kasta lagu bedeli karo. Namduusan wuu ka tagayaa kadib daani waxa soo wacay mastaraan wuxuu ku dhahayaa Namduusan wiish ku arkay waxaan u diiday inuu adiga kula kulmay ay raali noqon. Darabtid biri waa la kulmi kartaa iyadana waxay ku dhahaysaa muhiim ma aha. Xiriirkeen hore ayuu dhamaa Soomaaliya wuxuu ku dhahay okay biri ayaan ku soo wacayaa. Kadib daani waxa soo wacay Namduusan iyadana way ku daminaysaa. Kadib asagana wuxuu imaanaya gurigiisa wuxuu fiirinayaa banooniga ay u soo celinaysay. Wuxuu soo xasuusnay habeenkii uu siinay banooniga. Intaas waxaan arkay Namduusan iyo asxaabtiisa dib u soo laabtay meesha ay shirkadooda ahaan jirtay. Waxayna go'aansanayeen inay shirkad cusub aasaastaan. Waxayna maamulka dhignayaan Juuso. Namduusan wuxuu dhahayaa waxayna mashruuc bilaabnaa. Juuso wuxuu dhahayaa ugu horreyn waa inaan xayeysiin sameynaa. Waxay imaanayeen foto Namduusan iyo adeerkiisa waxaan laga qaadayaa sawiro. Waxaan arkaynaa labada mitaan oo tahay naagtan. Iyagana waxay ku dhahay interview sababta loo kansal maxaa waaye. Waxay meesha ku arkaya Namduusan. Gabdhan waxay ku dhahaysaa Namduusan dartiis ma interviewgan u kansashay. Naagtan waxay ku dhahaysaa Namduusan way u shaqaynaysaa darteed waa iga raali noqdo wayna ka tagaysaa. Markii mastaraan gacanyihiisa wuxuu imaanaya injee wuxuu ku dhahay ducada Bilaaw soo baxay iyadan hay ay dhahaysaa goobta ducada iyadoo jooga injee teamka waxay TV ka arkayaan. Labada mitaan oo socda injee adeerkeeda kadib daani waxay soo xasuusinaysaa markay isla taagnaa injee adeerkeeda wiilka u dhalay iyo labada mitaan. Xasuusta kadib injee way soo baxaysaa waxayna imaanaysaa adeerkeeda iyo wiilka u dhalay. Waxay ku dhahaysaa shaqaale qaar kamid ah daawatid maxaa isku dayaysaa. Wax hor u socda idinka marka xaaladina ka fikira. Samson wuxuu ku dhahay aniga hadda waa isbedelay sida hore ma ihi injee waxay ku dhahaysaa aniga xitaa waa isbedelay wayna ka tagaysaa. Injee waxay imaanaysaa daani waxay ku dhahaysaa waxaa laga rabaa inaad shaqaaleysiisid dadoosan ka badan khibrad u leh. Daani waxay ku dhahaysaa waqti ay u baahan tahay in dad noocaas oo kale la helo. Waxay ku dhahaysaa Namduusan iyo asxaabtiisa. Daani waxay ku dhahaysaa Namduusan iyo asxaabtiisa waqti kooban ay inta joogi rabaan. Injee waxay tusinaysaa buug ay ku soo qoreen inay shaqo halkan ka bilaabi rabaan. Waxay ku dhahaysaa waxaad rabtaa inaad Namduusan xaasidda ku noqdo. Injee waxay ku dhahaysaa sidee daani waxay ku dhahaysaa waad ogtahay markaa kala tagay inaad si xun ula hadlay. Hadda u dhihi karaa waxaan rabaa inaad shirkadda injee ka shaqaysid. Injee waxay ku dhahaysaa si hadda badan laga rabaa inaad ku qancisid. Inta ka tagaysaa kadib ay soo laabanaysaa waxay ku dhahaysaa hadii dadka soo shaqaaleysiinayso shaqada ayaa ka tagaysaa. Gurigeeda markay imaado waxay wax kasta u sheegaysaa hooyadeeda iyo ayeeyadeeda. Daani ma qancin doontaa Namduusan iyo asxaabtiisa inay kambani injee ka shaqeeyaan. Waxaa ku ogaanayna xalqad soo socota oo ku maasantahay daawashada. Waxayna xalqad xigta like taa lacag siiya. Bye bye.